السلام عليكم qisadan waxay ku leedahay shay walbo ku asiibo kuugu dhaco waxaad u neystaa ama aad aamintaa inuu shaygaas yahay khayr ama khayr uu kuu yahay haddii hataa tahay shaygan shay aad dhib kuugu ah ama saameyn kuugu leh ama aadan doonin oo aad karaasanaysa wax kastoo kugu dhaco ogaaw in uusan rabbigaada shay aan wanaagsanin uusan kula doonin haddii aad tahay imtixaan waxaad neystaa inuu shaygan yahay shay adiga aan khayr kuu ah oo wax kale lagaga xijaabayo wax kastay ahaadaanba wuxuu ku leedahay aayadan alla meenu aadis laa yukallifu llahu nafsan illaa wuscahaa rabbi kuma xamilna fillah wixii awood maana marka shay kastoo kugu dhaco u niyeysa khayr aayad kale waxay rabbi uu leeyahay waxsa an takruu shay-an huwa khayr lakum wacsa an tuxibuu shay-an huwa sharu lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun alaanu inta wuxuu nagu sheegaa in ay jiraan ashyaa anaka aan jecelna laakiin shar inoo ah iyo ashyaa anaka aan nacoono laakiin khayr inoo ah inay jiraan marka alla wuxuu leeyahay wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka qisada waxaa la magaceeda oo dhan lacalahu khayran ama lakaana khayran lak qisada magaceeda dhan waxaa waaye lakaana khayran lak shaygan macquul inuu khayr ku yahay ama wuxuu ku yahay khayr aan gudagelin qisadeena waxaa jiraa lahaa melig ama boqor ayaa jiray waxa uu lahay wasiir uu aad u jecel yahay wasiirkan wuxuu mid xigmad leh rabbi aad ugu kalsoon rabbin ugu hibeeyey xigmad nin aad iyo aad u xigmad badan ayuu ahay marka maalin maalmaha kamid ayaa wasiirkii iyo madaxweynihii marka ninkan wasiirka madaxweynaha ma uusan ka heli jirin oo aad iyo aad ayuu u jecla oo saaxiibo ayuu la ahay marka waxay aadeen ugaar way ugaarsi doonteen markaas ba markuu madaxweyne ugaartay ama heli waayo ama wax uun ay ku dhacaan ama uu ku fashilmo kale waxa ay asiibaan wasiirku wuxuu ku leeyahay lacalahu khayran khayr ayay ku tahay in khayr ku tahay macquula kadib saasay baash u ahayd madaxweynihii ama meligii ama boqorkii wuxuu ku dhacay god aad iyo aad u weyn ayuu ku dhacay godkii markuu ku dhacay waxaa wax gaaray fartiisa ayaa wax ka gaartay kadib fartii ayaa waxaa ka daayay dhiig aad iyo aad u badan ayaa ka baxay fartii oo dhaawac weyn ayaa soo gaaray kadib ugu dambeyntii waa laga soo saaray waxa uuna aaday dhakhtarkii markuu fiirshay wuxuu dhahay ama uu ku amray ama uu sheegay in fartan ay tahay jaritaan in dhib ku tahay jirka kale markaas waa uu xanaaqay meligii ama boqorkii carawi xidhaan aad iyo aad u daran ayuu xanaaqay waa uuna diiday oo soo horjeesay nin boqora oo nin boqor faraya way culus tahay laakiin ninkii dhakhtarka ahay wuxuu sheegay in fartaan in lagoymahaana si kale aysan jirin hadhowtan ay kusii faafi doonto xanuunkan dhammaan jirka kale marka madaxweynihii waa uu ogolay marka dambe maadaama la dhahay xanuunkan waa uu sii faafayaa waxaa laga jaray fartii waa laga jaray marka ninkii wasiirka ahaay markasta ku hay lacalahu khayran markaas markii fartii laga jaray ayuu arkay oo wuxuu ku dhahay lacalahu khayran khayr ayuu ku tahay in fartaa lagaa jiro marka nin boqora oo lagu dhahay khayr ayuu ku tahay maxaad ka filanaysaa markaas intii hore caadi buu ahaay markan buuxana markaas wuxuu dhahay wama alkhayr fi dalik khayrka aad sheegayso waa maxay atamanaa an waxaa ku faraxsan tahay in farteeda la jaro in farteeda laga jaro wuu xanaaqay xanaaq aan caadi ahayn ayuu xanaaqay ma uusan dirin laakiin wuxuu ku amray dadkii asiga la joogay markaas markuu soo laabtay in ninkan xabsi ay dhigaan oo ay xiraan wasiirkii ma uusan ka waalin haddana wuxuu ku dhahay lacalahu khayran in haddana tan khayr ii tahay ayaa macquula inay xirtaba in khayr ii tahay ninkan wuxuu ku dhegan yahay lacalahu khayran in khayr ii tahay ayaa macquula khayr ayay ii tahay markaas buu wasiirkii waxaa kasoo wareegtaa la waqti aad iyo aad u badan waqti xoogaa baa kasoo wareegtay kadib maalin maalmaha kamid a wasiirkii iyo dad kale asi la socday iskugu jiray ciidan iyo dad kale way baxeen oo waxay aadeen ugaarsi kale kadib markay meel dhex marayaan ayaa waxay la kulmeen qolo sanadka caabudo jamiica ah oo asnaam caabudo markaas ayagan qolada waxay raadinayeen shay qurb ayaa la shay ay ugu dhawaadaan allooda sanadkaas ay caabudayaan markaas waxay arkeen qoomkan socdo oo duulayo markaas bay waxay dhaheen soo bax waaba noo soo gashay maanta waxaan idinkugu dhawaayeynaa sanamkeena ama ilaahin ayaa idinkugu dhawaaneynaa dhammaan
waxay dileen dadkii weygooda gowraceen oo yani qurbo ahaan ay yani sanadkoodii ugu dhowaadeen. Waxaa soo haray madaxweynihii ama malgii ayaa soo haray. markaas bay waxay dhahaan yani kan far ayuu ku go'an yahay oo qurbo ma gelaayo. yani shayga qurbaha waxay dhahaan waa shay nadiif inuu ahaado. shayga yani loogu dhowaanayo ilaah waa inuu shay nadiifa oo aan hal meel la'ayn inuu ahaado ayaa rabaa. markaas bay ninkan yani way iska dhaafeen weyn yani iska cesheen iska raaciyeen dheen yani markaas madaxweynuhu wuxuu u laabtay meeshii uu kasoo kacay asoo kaligiisa dhammaan wixii la socday oo dhan waa la wada gowracay oo sanab ayaa loogu dhawaaday. kadib markuu madaxweynihii soo laabtay wuxuu dalbaday in loo keeno yani ciidanka ayuu dhaha wuxuu dhahay waxa ay keentaan oo ay soo xadirisaan wasiirka iyo soo xadiriya. waa loo soo xadiriyay oo waa loo keenay. markaas buu wuxuu galay cuur daarasho iyo calaacal ayuu galay. yani wasiirkii waa uu yaabay oo markaas waa uu yaabay. markaas buu wuxuu ku dhahay maxaa dhacay yani maxaa ku asiibay. markaas buu wuxuu ku dhahay ثم سئل عن سبب قوله لعله خير ayaa dhaha. yani wuxuu su'aalay hadalkii uu yani dhahay لعله خير yani maxaa ku wadi ereyadaas yani adees markaas buu yani wuxuu wasiirkii yani ku dhahay yani shay kastoo kugu dhaco yani waa shay yani wanaagsan oo markasta ilaahay shar kula dooni maayo. markaasuu yani wuxuu ugu sheekeeyey qisadii soo martay in yani dadkii inay baxeen dadkii la socday in yani sanab loogu dhawaaday oo dhammaan lasoo wada gowracay asigana uu kusoo badbaaday inuu farka go'aan yahay uusan geleen qurba ama dawaasho ama qurbaan inuusan gelin. markaas buu wuxuu dhahay saas ayaan kusoo badbaadinay oo yani farta inay gaadaba khayr ayay ahayd. markaasuu ninkii wasiirka asina wuxuu ku dhahay inay xirta anin khayr ayay ahayd oo maxaa yeelay ninka waxaa ahay keliya yani aan marnaba kaa harin kula socdo. haddii maalintaas aan ku raaci lahay oo aan xabsi geli lahayn yani annaga waa liidin lahay oo nafsadeeda ayaa bixi lahayd. marka in adii farta aan kaa jiro aan aadi xirto yani khayr ayaa labadeena nagu jira labadii ayaa khayr nagu jira. marka qisada waxaa ka qaadanaa in qadaha allah iyo waxyaabihiisa in ay yihiin yani in aad aaminto sacaad inay yihiin sacaadatul hayaa yani in ay yihiin shay wanaagsan alla in markasta kula doonaya khayr aada ku xasilan tahay shay kastoo kugu dhaco. yani waxaa laga yaabaa asiyaa hadda aad dhisanaysid laakiin haddii sida la rabo haddii lagu yeeli lahay in ay ku ahaa lahaayeen shay adi yani dhib kugu ah ama noloshaada qiil galsho. marka iimaankaadu ha ku sii in aad aaminto rabbi waxa uu kuu go'aamiyey. rabbi marnaba lagama yaaba shay aadan qaadi karin in uu ku saaro. laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa. waa aniga masal cadlaa next video ayaa inoo balama. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.